بسم الله الرحمن الرحيم. كسمها قدوميها قلها شعبك رئيس وزراء حكومة قلها وزير هذا قدوميها قول كبنادر أهنا توقع مقالنا حلوانا ذا لوضع أقل تلياشا عيد مدى قلب كسيدة سرياشا سراكيشا سراكي الحقين هذا إن هو بلده quruxda badan oo maanta runtii noo soo bandhigtay heeso iyo suugaan badan oo wadaniyad badan ay ku jirto gobolada waa bari gobolada horseed heegan iyo onkod iyo dhalinyarada yararka ah oo noo soo bandhigay mahrajaanka agoonta ciidamada booliiska howlwadeennada gobolka banaadir ka yimid 17 degmooyin gobolka banaadir ka kooban yihiin rasaariyo hore waa nala joogaa bahda saxaafadda bambeyda marti sharafta kale dadweynaha soomaaliyeed oo na daawanaya kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qodbo badan halkan uma soo istaagin, waxaa noogu filan runtii suugaantii na kicisay oo xamaasadda na gelisay oo wadaniyada lahayd ay soo bandhigeen gobolada fanka iyo suugaanta ee Soomaaliyeed. aad bay u mahadsan yihiin. ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan suukaay keenay aan u dabaaldegayno sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 1 Julaay 1960 markii aan xorriyadda ka qaadanay gumaysiga Talyaaniga kadibna labada gobol ee Soomaaliyeed ay xoroobeen oo ay midoobeen. waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada uu guddoomiye u ahaa wasiir Dube iyo wasiirada la shaqeynayay oo noo soo qabanqaabiyey toddobaadka xorriyadda oo sida quruxda badan maanta ugu soo gabagabeeyey halkan aad iyo aad ayay runtii u mahadsan yihiin. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta idaacadda qaranka iyo warbaahinta guud ee dalka oo xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed kicisay oo soo xasuusisay waayo waqtigii xornimadoonka shacabka Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada uga sheekaysay wixii la soo maray SYL halgankii ay soo mareen. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaagay wiigii ama isbuucii xorriyadda oo muujiyey shucuur Soomaalinimo, muujiyey xamaasad wadaniyad, muujiyey xaqiiqatan waxay siisay rajo inay soo noqotay wadaniyadii, patriotismkii inay soo noqotay. waxaan rabaa waxyar inaan xasuusiyo dalkan waxaa isku haysta afkaar, dad ma aha, laba afkaar yaa isku haysata. annagaa nalaga rabaa marka midkaan qaadan lahayn. ilaahay wuxuuna siiyey inaan kala dooranno, choice yuuna siiyey. midkaad qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiisa, midna wuxuu leeyahay wanaagiisa. caqligeeda ilaahayna siiyey inaan ka fakerno kee qaadanaa marka. labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda. isticmaalka dalkan gumaysanayay, isticmaalka dalkan soo gumaystay ee ingiriiska iyo talyaanigu waxay isticmaalayeen. waa mahadsantihiin. labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan. wuxuu u noqday qabiilka marka. muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda. dhalinyaro ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaanno waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyadda ah si dalka loo xoreeyo, dalkana loo mideeyo
dowladnimada loo helo afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda koodii baa guulaystay wadaniyadii yaa guulaysatay wadaniyadii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ay ka horayso in dalka uu dowlad noqdo dalka inuu midoobo afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay afkaartaas weli xoog iyo leedahay way sii xoogaysatay waxay noo keentay dowladnimo waxay noo keentay sharaf waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno waxay noo keentay soomaaliya inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay waxay noo keentay tacliim iyo iskuulle in la furayo jaamacado dalkii waa dhistay taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda laakiin nasiib darro muddo dambey daciiftay waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladdaa soo noolaatay way soo noolaatay afkaartii wadaniyadana waa sii daciiftay taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay soomaaliya meesha dhigtay dalkeenay burburisay ummadeennii waa kala irroobeen dadkeenni waa qaxeen qaar badan qaxootay aadeen qaar badan badday ku baaba'een waa kala qaybsannay waa kala qaybsan ummadeenni way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummadeenni way kala qaybisay waa mahadsantihiin ummadeenni waa kala qaybisay waxayna dhigtay africa meesha ugu hooseysa dalkeennii qayb yay kala noqdeen cadowgeennii ama shisheeyana waxay heleen sababtii dalkeenna ay u soo geli lahaayeen oo ay noo sii kala qaybin lahaayeen oo ay weliba noo maamuli lahaayeen haddaba waxaan hadda arkeenno usbuucyada la soo dhaafay runtii ما شاء الله وما سنتين دليرو وما سنتين وقال دقالك واسعدا أي كو هردمايين ودنيدا هي قبيالدا مربا ميدبا سوكر مربا ميدبا حوغيستا هذا وحا إيه موقد رجا مرك إنه ودنيدي سو حوغيسانيسو أو قبيلك جمايو وحانا كقرتا دنيردا siday u muujiyeen astaantii qaranka ee calanka ay u muujiyeen siday isugu soo baxeen ay bannaanada u taagan yihiin iyo guud ahaan shacabka soomaaliyed meel kasta ay joogaan macnaheedu waxay tahay wadaniyadii way soo noqotay hadday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanaynaa dalkeena dib buu u soo noqonayaa waa dhisanaynaa dhaqaalaheenni waa soo noqonayaa sharafkeenni magaceenni waa soo noqonayaa إن شاء الله دولة هذا كان ومدوري دونا هذا وحن كلا دورنا وما ستين waxaan kala dooranaynaa marka labadaas afkaar oo ishirdinaya oo dagaalamaya yaan kala dooranaynaa waan la kala safaraynaa ama waxaan la safaraynaa kan wadaniyadda oo dalka dhisaya oo idinka idin walaaleenaya oo dalka mideynaya oo sharafkeennii karaamadeeni noo soo celinaya ama waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeennii burburiyey oo adduunka meesha ugu hooseysa la dhigay أنا ما أمس إن قارننا كاس تبع إن قارننا
وما سنتين marka dagaalkaas ay isku hayaan tribalismka iyo patriotismka aan la jirsano patriotismka wadaniyada aan la jirsano soo balan maaha waa qaadana wadaniyada Soomaaliya dalkeena waa dhisanaynaa Soomaaliya dalkeena iyo dadkeena waa mideynaa Soomaaliya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh